waa qaybtii 8aad qisadii la magac baxday caashaqi hoyan waayay hormuud baa u soo dhacay. liibaan wuxuu islahaa kaama qaban doonto taleefanka maadaama uu gabadhan horay balankii ugaga baxay, balse way ka qabatay, welibana iyadaa hadalka ku bilowday. alla mariyoonayaa mise waa gacaliyahaygii oo mar kale isoo raadiyey. intaa markuu maqlay liibaan durba dareen farxadeed baa jirkiisa ku baahay, niyaddana wuxuu iska yidhi ilaahay naxariis badana, jid hadduu kaa xirmo ku kale ayuu kuu furayaa. kadib isagoo u marmarsiyoonaya wuxuu dhahay, abbaaye macaanto hooyo ayaa iga xanuunsatay oo hosbitaal ayaan kula jiray, ee adiga xaalkaaga iiga waran, isagoo beentaas naxariis kaga raadinaya. is-afgarasho iyo heshiis kadib waxay ku ballameen in beri galab ay ku kulmaan jidka sigiska ama 6 Street ee xaafadda Islii. welibana liibaan wuxuu wacad uga qaaday inuu xilliga ballanta oo ah 4:15 galabnimo ama 10:00 galabnimo uu taagan yahay meeshaas. wuxuu waqtigu isguro, goorsheegtadu waxay soo dul istaagtay iyadoo saacad ka hadhsan tahay xilligii ballanta. waa galab ka duwan galbihii hore. aqalka waxaa laga dareemayaa diyaargarow aad u sareeya. hooyo Nadiifo oo markaas suuqa ka timid baa weydiisay Axmed, wiilashaydii maanta ma xaflad baa la idinkaga yeedhay, idinkoo sidaan isku jaakeynaya maan arage. maya habo, sawir xasuus reeb ah ayaan soo wada gelaynaa, ayuu dhahay Axmed isagoo qoslaya. liibaanna intuu dhanka Axmed soo eegay ayuu beenta la jiibiyey, wuxuuna dhahay haa waa sidaas. waxay ka soo wada ruqaansadeen aqal qura, balse nin walba ujeeddo qaasa ayuu u socdaa. sida caadada u ahayd, wada sheekaysigii iyo kaftankii waddada lagu wada mari jiray maanta wax badan baa iska beddelay. wada hadalkoodu wuu yaraa, nin walba wuxuu isleeyahay yuusan kan kale ku fahmin. xoogaa kadib nin walba wuxuu u leexday halkii uu u socday, waxayna isku macsalaameeyeen sidii dad aan mar kale is arki doonin. balaayo kaa sii jeedda la iskuma soo jeediye, liibaan wuxuu gaaray bartii lagu ballamiyey. wuxuu la soo baxay taleefankii isagoo naxsan, maadaama xaafadda sigiska ay u badan yihiin dhallinyaro ay colaadi kala dhexayso. halow abbaaye macaanto, waan joogaa meeshii, ku aaway ayuu dhahay. isugu waan soo socdaa ayay ugu jawaabtay. 3 daqiiqo kadib isagoo daahsanaya gabadha buu is yidhi ku celi taleefanka. kurbo iyo dhibaato si halkaas ayay uga bilaabatay, ileen gabadha ballamisay liibaan waxay la shaqaysaa tuugada xaafaddaas deggan. isagoo taleefanka eegaya ayuu ka war helay 3 nin oo dushiisa taagan. naxdin iyo indhacadays ayaa ka soo haray liibaan. mid baa kula dheegay taleefankii, labada kalena madaxa ayay ka garaaceen. si kasta xitaa way u saamixi weysay inuu fakado ilaa taleefankii laga qaato, jug culusna loo geysto. liibaan wuxuu ilaah ugu gargaaray 3 nin ee garaacday, isaga si fiican uma aysan aqoon. wax kale ma uusan samayn karin xilligaas. wuxuu u soo cararay dhanka suuqa Amal. Axmed dhankiisa wuxuu tegay goobtii ballanta. xilligaas Hani ma aysan joogin. 5 daqiiqo kadib isagoo isweydiinaya waxa helay, ayuu hortiisa meel dhowr tallaabo u jirta ka arkay Hani oo soo socota. sida loo ixtiraamo dadka mas-uuliyiinta oo kale ayuu u sara kacay. hani wax kastuu Axmed samaynayo fajac iyo layaab ayay ka sii qaadaysay, iyadoo qoslaysa waxay tiri, abboowe habmaamuuskan dadka madaxda ah ayaa loogu talagalay, ee ha isdhibina ii fadhiiso. madaxtinimadaba macno ma yeelateen haddaan la isku qadarinayn. aniga agtayda darajo sare ayaad ka leedahay abbaayo, ayuu yidhi Axmed. hani oo xishoonaysa ayaa u mahad celisay, iyadoo u raacisay, axmedow galabta sidee jidka ku soo martay oo gabdhihii Isliiyaa kaa celiyey. runtii galabta si heer sare ah ayaad u labisan tahay. Axmed oo raba inuu hani dareensiiyo booska ay u taagan tahay baa ku jawaabay, waxaa laga yaabaa maanta keliya inay arkeen gabdhaha Islii labiskayga quruxdiisa, laakiin ma ogo inay jirto gabar mar hore aragtay qalbigayga quruxdiisa. hani way dareento qofka uu ka hadlay inaysan cid kale ahayn. iyada lafteeda waxaa ku beermay dareen ee Axmed u qaaday, balse waxay isku celisay in xiriirkooda ay waqti siiso oo ay si fiican isku fahmaan.
cabbaar markii sheekada si talantaali ah loo qaybsaday, sarbeebahana sidii hubka culculus la isugu tuurtuuray, qof kastaana uu ku jira aag sida kuwa dagaalada laga gala camala, labadoodana ay isdhahayaan allay lehe hebel baa bilaabi doona oo dareenkiisa soo bandhigan doona, ayuu Axmed si niyad ahaana wuxuu u yidhi, naftaydan kuu xabiibka inaad ku xamaashay caashaq mar uun kaalay xisaabi, indhahaaga saar xaqiiqda, xubnaha jirkayga daawey, xiskiyo laabtana qabooji, xalliyo wadnaha deji, xabsuu igalshay jacayle, xujana way igu fogaatee, xabiibti adaanku doortee, mar uun xaalkayga fahan. hani oo u muuqata mid fariintaas ay soo gaartay ayaa iyadana si niyad ahaana waxay u tiri, rabbiga haayatayda, himilada saxaa ogsoon inaan u hilow qabataada, haddii aan awoodi laa haaddaan soo amri laa, hududkaa kuu tabin laa, halkaad iga taal xabiibi, hawaalo adduun warkeeda hal baan ku dhaafsan laa, dareen baa haga naftaydee, hamuun baan kuu qabaaye, inaan hoy kula wadaago ayaa hibo iigu filan. halkaas markuu xaalkoodu marayo, liibaan oo isna suuqa warwareegaya ayaa wuxuu u soo jihaystay dhanka maqaayadda ku taalla oo ay Axmed iyo hani ku jireen. inta uusan maqaayadda gudaha u sii gelin ayuu arkay Axmed iyo hani oo wada fadhiya. wuu rumaysan waayey waxa ay indhihiisu arkaan. muxuuse sameeyey? la soco qaybaha kale. qaybtanse maxaa kaaga baxay? hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan kula akhristo had iyo jeer, halkan uga wac oo menshan dheh, siina sheergareeya.